سلسلة العبارة اللي نفسه بنو مشي كرتو اللي ازدهر وفري وحصل هو إن راتب له قرني لبعتنا أنا قياسته أنت اللي حيصير كل يسجل بقول يسنتي إلى كل يسجل بقول يسديدي اللي قاعد يسوحها حل الأورك الصوماليين ولي عن دبل وكرة قيم حبها مولي حل عن قميص وبدها ذلك كورة فين حل أي صومالي اسكور قبته تدخل تحمل التري صفرها بالبركة صباحنا أي برا وسوق قال التري dalku dawladda xamalahayn sida dadkeena Soomaalida tol waliba wuxuu lahaa madaxdiisa u gaarka alaad iyo nabad guddoonka gabadh dambaysta ah iyaga ayaa laga sugtay dhinaca kale meelaha qaarkood waxa iyaguna ka dhisnaa maamullo silsaan dawladeed lahaayo ilaa heer shisheeyaha ka madax bannaana kuwaasoo ay ka talin jireen boqorro iyo suldaano dalka u dhashayo madaxnimadoodu ay kala dhaxlid ku salaysnayd waxaa ka mid ahayd sadanadii hobyood iyo tii bari iyo tii haddii alla guurooya galadii iyo boqorontii afgooy waxaase intoodaasba ka awood badnaa kana magac beera dhaqdhaqaaqi gobonnimo doonka ah ee daraawiishe kaasoo dhidibada u aasay halgamaagii gabayaaga iyo aqoon-yahankaba ahaa sheekh maxamed cabdilla xasan oo sayid maxamed caan ku ahaa wuxuu ahaa dhaqdhaqaaq aan qoloqolo ku dhisnaa jihaad diinta looga qeyl helay awooddii maaraynta iyo maskaxdii weyneed ee sayidka ayaa suuro gelisay muddo dheer daraawiishe inay gacanta sare geeska afrika ku yeelato dowlado waaweyn sida ingiriiskana ay u goojadayaan waxa uu xilligaani ku beegan yahay kolka taya ahaan markii ay maansada soomaaliyeed ugu wanaagsanayd ee gabayada quruxda badan fariimaha la isugu tiri jiray waxaa noolaa kooxo maansayahana ah oo la wariyay dhammaantood inay dhasheen gugii caanka ah ee gobaysana la magac baxay loona badan yahay inuu ku aadan yahay sanadkii 1865 gugaas maansayahanada loogu abtiriyaa ama la sheegay inay dhasheen ma yaray waxaana ka mid ahaa sayid maxamed cali dhuux iyo qamaan bulxan sababtii kolka ay silsiladan hal cabeera ku bilaabantay xilliyadaas waxaa bulshooyinkii soomaaliyeed ee raacatada ahaa oo caada ahaa magac iyo awood siyaasadeed ninkii rabaaba inuu ku dadaalo siduu kula xidhiiri lahaa mid ka mid ah qoysaskii ka talin jiray maamuladaas aan carabka kusoo dhufanay haddaba nin reer ciideed ahaa oo la oran jiray axmed baraare waa ogaadeenoo waa reer cabdille waa reer magan warfaa ogaas magan waa ina baraare maxamed nuur cuburiyan sidaa la wada xusuusan yahay wuxuu ahaa nin geyigaa marka talin jiray oo keligitaliga ah oo kelitalisnimo caan ku noqday axmed baraare wuxuu ku abtirsanayay kolka qoysaskii iyaguna degaamadaas ka arrimin jiray markaasuu doonay inuu la xidhiidho reer kanadiid oo 60 sano muddo ku dhow gobolka mudug magaalada hobyood uga talin jiray yaradka iyo xaragada gabadha reerkooda loo walwaala ka soko markaas oo kale waxa uu ninka guurdoonka ahay sii kaxaysan jiray dhalinyaro iyo garmadow ay maadeeqa yihiin kuna tilmaaman golajoog wanaag haybad iyo iftihaamayntaba axmed baraare hiddahaas kama u ildoofin markuu hobyasi istaagayna waxaa hareer socday rag dharankooda lala afjabay oo gobonnimadoodu ay foolkooda iyo hubkoodaba ka muuqato raggaas ayaa waxaa ka mid ahaa nin lagu naanaysi jiray hal cabeere ha yeeshee magaciisa runta ahi uu ahaa xuseen cashuur cali silsiladani waxay kolka ku saabsan tahay kaftan ninkaa ku baxay iyada oo maansayahanada qaarkood ay hunguri weyne iyo cilweyne iyo hunguri xumo intaba ay ku tilmaamayaan qaar kalena ay ka daafacdeen kolkolka qaarkood inkastoo arrimo kalena lagu soo qaaday haddana ujeeddada silsiladda isaga ayaa tirdhexaad u ah isaga ayayna doodu ku socotaa kolka sidii caadada soomaalidu ahayd nimankii dadabgalka ahaa ee ogaadeen ee doolle iyo ciid ka yimid axmed baraarena oo hor socday si wacan baa hobyo loogu qabtay waxaa loo asteeyey guryo ay habeenkii ku hoydaan iyo geedo waaweyn oo ay maalinimada harsadaan halkaas ayaa lagu dhaqaalayn jiray muddadii uu wadahadalku u socday lagala xaajoonayay yaradkii ay wadeen iyo gashaantimaha reeraha midda ay doonayaan intay tahay markii axmed baraare gabadhii la siiyey ee sodog seediyaal iyo sodohdiiba ay ismarteen xaragadiina lagu heshiiyey wax uu bixiyey markaa iyo wax uu ballan qaadayba markaas ayay isaga iyo raggii la socday ambabax u faarumaysteen ha yeeshee waa meel wax laga wadaaye haddiiba ma ay gadoomin hobyo iyo xididkii dhexdiisa ayay toddobaadyo kale isaga sii nagaadeen maalintii dambe koox iyagii ka mid ah oo geedihii ay harsan jireen harsanaysa
ayaa haldheere oo ku jiray waxaa alla afkiisa ka keenay war oon baanu u dhimanay yaa loo duceeyaayo seeraha noogu taga oo iyo nooga keena sow iyagu ma daadine waxaa geedka meel dhinaca ka fadhiyey oo wax ka harsanayay kura yar oo ka tirsanaa cidaha ay martida u ahaayeen kiibaa orod istaabtay oo odayadii cismaan maxamuud inta u tegay ku yidhi nimankii ogaadeen baan soo maray oo waxay lahaayeen oon baanu u dhimanay yaa reeraha biyo nooga keena mid ragga ku jiray odayaasha ah la oran jiray cali sharmaarke ayaa kolkaa kuragii wuxuu ku yidhi maandhow ninkii hadalkaa yidhi nimanka ma ka garanaysaa magaciisa ma taqaan wiilkii wuxuu yidhi magaciisa garan maayo waase ninka dheere aadka u casee quruxda badan ay haldheere ku lahaayeen laakiin magaciisa kale anigu ma aqaan waxaa la yidhi halkaa ayaa cali sharmaarke gabay uga muuqday waa gabayga bilaabay silsiladda haldheere waana gabayga keenay in ay gabayo badan oo jawaabi ay ka soo noqdaan cali sharmaarke waa sidaan soo sheegnay waa reer hobyood waa majeerteen oo waa cismaan maxamuud oo baha yaquub waa qoyskii xukumay ama ka talin jiray hobyood midda kale wuxuu ahaa ninkii dhalay allaha u naxariistay madaxweynihii labaad ee soomaaliya cabdirashiid cali sharmaarke marka aanu gabayada intaanu wadno waxaanu sheegi doonaa gabayaa kasta qolada uu u dhashay iyo halka uu wax ka warmaynayo sidaa darteedna waa inaan lala yaabin haddii aanu sheegno qabiilka oo soo celcelina sababto waxa weye gabayga soomaalida lama garan karayo haddii aan la sheegin cidda loo tirinayo iyo cidda tirisay xiriirka qabyaaladeed ama xiriirka toleed oo ka dhexeeya marka cali sharmaarke tixdiisaan soo socota ee bilowda silsilada sidaan soo sheegay wuxuu ku faanayaa inay yihiin dad hodan oo ilaahay gacantooda wax geliyey oo iyaga uuna ay awood u leeyihiin haldheere oo kale inay muddo dheer hayaan waa tixmaaga wuxuu yidhi nag yahay horyaalnimo ninkii loo huraanaye nag yahay horyaalnimo ninkii loo huraanaho nag yahay horyaalnimo ninkii loo huraanahay haybkayga waa laga hayaala ogaadeene awal baan hordhaaladkii noqdiyo hanadkii daaro awal baan hordhaaladkii noqdiyo hanadkii daaroode gobernimo inay hodantaho hibaadna loo siiyey isagoon hanti wadan daadiina nala horaynaynin haldheere nimankiisa nadoohin jiranaho intaa ayaa tixdaa naga soo gaadhay sida muuqata waa tix gaaban si aad u culus waxaan muddo isweydiin jiray ma tahay niman masti ah oo haddana xidid ahay tixay mudan yihiin waxaa sukay qaban waayey hadalka halac fududaantiisa iyo yaabiya noo keena iyo tixda cali sharmaarke culayskeeda muddo haddaan saa ahaa ayaa waxay soo gaadhay sheekadan soo socota waxaa la sheegay axmed bulaale markii uu ragga urursanayay doonayay inuu hobyo tago raggii uu damcay inay raacaan waxaa ka mid ahaa nin gabayaaha loo oran jiray ismaaciil qoorleexo ogaadeen oo reer cabdillaah oo maalin guuraho aad geyigaas caan uga ahaa ninkaas ayuu damcay inuu raaco oo uu ku sirtago ragga uu ku sirtagaayo uu ku darsado wuu ka diiday haddana uu ku soo noqday oo wuxuu ku hunguri geliyey geela yaradka ah ee kontonka halaad ah ee uu wado ee uu hubyo geyn doono marka uu bixiyo oo laga gudoomo waxaa loo soo celin doonaa 25 halaadoo magacooda la yidhaahdo ama hiddaha soomaalida yarad sooran 25kaas baan waxaan kaa siinayaa buu ku yidhi 10 halaade ismaaciil qoorleexo in adeer uga raaco hubyo raaco gabadha ila doon ismaaciil qoorleexo wuu diidayo wuxuu yidhi geel nimankaa majeerteen la siiyey oo ka soo noqonaya aniga inama muuqda mana dhici doonto ilaa baa wax siiye waddada iyo haddii alla kuu doonayaa safarka iga daadgeli maaye meeshaa geel ka soo qaaday maaye waxaa la yidhi gabaygu tiriyo gabaygaa waxaa naga soo gaadhay haaneedka uma laabi karo geela hubayooday hurdaba waa ku keenaa ilaahayba iyo laane haydaarto caafiba ma qaba waana hodankaasi habeenkan dhashaa ila socda halaca ii waaba
ولين عافي اللي هذا القي قال لي يقينوا حولها يقول على قبصة وحوا هذا اللي نسبوا أتصبوا متداروا أنا قد ما يقول سبعة اسكسر عليه حدين اللي جوري وتجي لبقى على الموضوع كده لبقى على الموضوع كحسته وهي بيلعب بحلو لبقى على الموضوع وحين غير تبقى يحلو ولفت حركة استوى عليان ليه ترنكودي وحكايتني markaasuu leeyahay ninkaasi waa hobyada ma tegin meel kale lama tegin ilaah baa sii caafiyo ana ilaah baa isiin kara marka hawkarka iyo waxa igu wada igada halka waxa la yiri gabaygaas iyo hadalka qorleeh ayaa nimankan guurdoonka ah ee hobyada tegay Axmed Buraale hoosoo ka sii horeeyay ka ayaa cali sharmaarkay ka ayuu maqlay kaas ayuu ka xumaaday gabaygan uu tiriyay hadda uu tiriyay Caleere iyo nimanka xiriirka ah uu kaga arsanayay ka hore oo leex ayaa leeyahay waana wax maanka gari kala